wafdigan uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Maxamed Cumar Cabdi Qaalib ayaa waxa qayb ka ah wasiiru dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo degmo ee gobolka Hiiraan ayadoo la joogo waqti kala guur ah oo Soomaaliya hadda xaalkeeda cid kasta oo wax garataa ay la socoto inaad maantay la soo booqataan oo loo timaadaan oo isdana weydiino oo waxa ku sugannahay wax badan aad ka ogaataan oo wax naga weydiisaan oo wax naga dhiman ugu kordhisaan oo wax aan maaragtay adika aad moogeedeen aad naga ogaataan oo maantay noo timaadaan aad aan ugu faraxsannahay haddaan nahay reer Hiiraan gaar ahaan caasimadiisa Beledweyne degmada Beledweyne oo caasimada gobolka Hiiraan soo dhawaadaan dilaynahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Cabdi ayaa sheegay kulamo iyo shirar wada tashi ay la qaadan doonaan odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Hiiraan marka waxaan idinku nimadoon hawshii dawladda sidii loo sii wadi lahaa waana insha Allah taala way arki doonaa bulshada inta qaybaheeda kala duwan hadday tahay odayaasha oday dhaqameedka hadday tahay inta bulshada inteeda kale waa arkaynaa waxaan jecelahay in aan ilaahaydankii iswareysano sidii wax inoogu hagaagayeen aan uga wada tushano hadii aan leedno taas ugu muhiimsan oo nimid marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan nimid maanta booqashada wafdigan uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Cabdi ayaa ku soo beegmaya xilli duubabka dhaqanka gobolka Hiiraan ay si weyn uga biyadiisan yihiin qorshaha dowladda federaalka ay ku doonaysay maamul goboleed loogu sameeyo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne.